shirkan oo ah shirkii shaqaalaha ee ay isugu yimid jireen mas'uuliyiinta iyo madaxda iyo sidoo kale shaqaalaweynaha wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland ayaa waxa goobjoog ah wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada agaasimaha guud ee wasaaraddaasi maamulaha madaarka caalamiga ee Cigaal International Airport iyo shaqaalaha wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland ugu horeyn halkaasi waxa hadal ka jeediyay maamulaha madaarka caalamiga ee Cigaal International Airport mudane Maxamed Yuusuf Ismaaciil iyo agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Cumar Cabdilaahi Aadan Cumar Zayd waxaanay tilmaameen inuu shirkan yahay mid lagu xogaal noqonayo shaqada iyo shaqaalaha halka ay sidoo kalena ay ka warameen adeegyada kala duwan ee shaqaalaha wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland iyo kuwa madaarkuba ay u qabtaan dadka ka soo degaya madaarka caalamiga ee Cigaal International Airport xilligan xagaaga waxa hadda ay ku jirnaa waa xilligii xagaaga ay dadka reer Soomaaliland dalkooda ku soo guriyo noqonayeen dadkaas waxay looga baahan yihiin adeeg shaqo wanaag hufnaan shaqo iyo dulqaad waxaynu oran karnaa xagaagani amba sida ay wasaaradda duulista statistics ay samaysay ay rajaynayso waa xilligii ay ugu badnaayeen ee qurbajoogku dalka ay ku soo guriyo noqon lahaayeen waxaan isku dhiirigelinayaa awal bay isku dhiirigelin jirnay adeega aynu dadka xagaaga u fadhino ma dhaliilayo aad iyo aad ugu sareeya boqol maaha laakiin waxa weeye wanaagsan yahay waxa doonayna halka ka sii xoojisaan taliya Saalax Carsh Ileeya taliyaha ciidanka bilayska ee waaxda madaarka Soomaaliland iyo Nageeye Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda amniga ee wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland ayaa shaqaalaweynaha wasaaradda duulista waxay ka codsadeen in shaqaalaha ku hawlan iyo sidoo kale ciidamada kala duwan ee ka hawlgala madaarka caalamiga ee Cigaal International Airport lagu gacan siiyo sugitaanka amniga madaarka gabagabadii halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland mudane Cumar Sheekh Maxamed Faarax waxaanu sheegay in shaqaalaha ka hawlgala wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland ay yihiin shaqaalaha hawlkara isagoo oo sheegay inuu muddadii uu joogay uu uga marakacayo dadaalka iyo kartida ay leeyihiin shaqaalahaasi intii aan idinla joogay muddadii yareed aan idinla joogay maxad aad u ballaaran ayaan soo jeedinayaa hawshiina soo qabsataan iyo sida aad qarankan ugu adeegtaan iyo sida dulqaadka aad u leedihiin ما jirto wasaarad ka shaqo badani wasaaraddan duulista ma jirto wasaarad u shaqaaleedu 4 subaxnimo ama 3 subaxnimo u soo kalaho waa wasaarad aan lahayn jimce iyo fasax midna aan lahayn